koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan heddeeda kuwii jeclaa hooggeeda ku diirsan jiray ba'eeda ku hawlanaa tallaabo markay hoshaba haadaanta ka tuur lahaa ayaa hirib doonayoo hamuuntii baas qabo bilaawo la haadayay haddii aan laga hortegin wixii agardaamo wadaa huleela haddaan la odhan inaan qaran haybadlo naha qabtiri kale hellamiyay noo hobyarta kuwiinna hawaawi jiray habada noo qaadi jiray dhiwaatay horseedayaan walaadhakan af soomaaliga ma yaqaan xaggee laga soo iibshay af soomaaliga waa yaqaanaaha ba'da iyo wa'dowsan kala aqaanin war ninkana gmail waa leeyahay war wuxuu la mid yahay inantii maalmo miyiga ka timid ee maalmo magaalada joogtay ee orgigii rida mooday shan habeen sheekh laguma noqdo war mahmaahidiinku dheelen doonfaar wiinadii halaala istaawiyaw war ma haysiine haddaad ogaan lahaydeen maanta warkii abwaanku ka bilaabay sheekada waad fahmi lahaydeen maanta waa maalintii daarihii dhaadheeraada maraykanka la qarxiyey war haana may doohan halanlaboodi maraykanka daaroja isi qarxiisaday adamaykoo ka jara war adigu markaad daaro maraykan nala aadaysid qarxii sabab miyaad ilowday wax ma ogidiin adigu waxaas aad haysaan maraykan aad haysaan maanta waa sanadkii cusbay ee muslimiinta eedda taariikhda islaamku waa meeqo adaa nugu dhaame anaa kuu sheegaayo 1440 waaye cambaray af carabi ku sheeg warkaan naga dhex gelinina dhegayso horta war maanta waa maalintii dhiiggeenna iyo nafteenna iyo maalkeenna la bannaystay aryaxaad haysatayoo lagaa qaatay abdulow may haanasnaha koo weeri walliska gaadada bani'aadankan kuwiin bani'aadan huf yalaka sii warniyow odagaay maanta meel cidlaa annagoo surnada kelmadda ay su'aali lahayd wallaan ili kugu yeerayn war waa maalintii xorriyaddeenna iyo hantideenna la qaatay oo la xalaalaystay shirkadda barakaad maalintii la xiray weeye maanta war heedhaa maalintan ay sheegaysaan maalintii 4.5 nolo sameeyey miya war maalintii federal nolo sameeyey waaye naga tag war maanta waa maalinkii aqalka sare nagu soo siyaaday war maahe waa maalintii doorasho dadba nagu soo siyaaday war heedhaaya waare wuxuu yidhi waa maalintii xamar gacanteenna laga bixin lahaa aryadhaha waxaan kala heli waayey anigu waare maxamar iyo jawharow ismoo isaga qaldamay waare ma wausan ahayn madaxweynaha hirshabeelle waxaan maqlayay asagoo leh xamar amnigiisu ma sugna ee xildhibaanow is-ilaaliya mugga asagoo amnigiisa ma sugtoo kan xamarxaa ugu jiroo wal wax ma ogide madaxweynaha hirshabeelle dadka xamar deganow ka mid yahay war madaxweyne waare wuxuu yidhi gobolka banaadir ha loo sameeyo maamul madax bannaan oo amnigiisa lagula xisaabtamo yaa yariisowna xow qabaha mugga maamul loo samayhaayo war madaxweynuhu wuxuu yidhi hay-addii nabad sugidda oo amniga qaranka soomaaliyeed gacanta ku haysay oo meeshii la qabsado u gurma jirtay waa la siyaasadeeyey waa la burburiyey booliiskii waa lagu fidneeyey maamul goboleedyadaa lagu fidneeyaa qaar boorsooyin lacag inta loo dhiibay buu yidhi war madaxweynaha Soomaali State war qiiro leh ayuu ka hadlay yaa Soomaali State shimaal la sameeyo ma maamul goboleed kaloo nagu soo kordhaya Soomaaliland oo magac bedelatay amay tahay warka naga dhex gelinine waa Mustafa Umar Cagjar waxauna yiraahday Muqdisho ay wax ka dhacay markaan maqlo qalbiga ay xanuuna dadka reer Muqdishona dhibaatadu meesha ka haysato waa inay fahmaan buu yiri maandhow liyu booliskii la sheegayo miyuu noo soo wadaa war madaxweynihii hore kilanka shanaad ee hadda loo bedelay Soomaali State Cabdi Ilay hooyadiis waxay tiri wiilkayga waa la jir dilay aad iyo aad loo garaacay dhiigu ma tagay war dad badan aantii usan dhamaayay dirga ka kordheeyay jiray inoo usan dhimido hayti yaxaad ku dheefay dhimashadiisa ma godkaaga u gala war ma haysaane degmada galhareere oo ka tirsan galgaduud al-shabaab ku guuray wixii yilay farmashiyaasha iyo isbitaalka iyo MCH wixii oo dhan daawooyinka waa ka qaateen xildhibaanada beesheenuna warka ma hayan arrintaas aryaa ka bugay mugay daawada guraha ayaan oo ka dhiig la'ay walaalahay war ma haysaane madaxweynaha Geedland iyo madaxweynaha Guriland iyo madaxweynayaal
mulqiyaha nugu wareeriseene madaxweynihii waddanku inuu hadlay soo ma ogin shalay kow balxow yiri haddaan waddadii dawladnimada cagta saarnay buu yidhi dalkana barnaamij isxilqaan layidhaahan ku dhisaynaa tiyaatarkaanna ka bilaabaynaa golaha murtida soomaaliya war madawiinaga isxilqaanka dhisaana madiusi leeye shiinaga beesimaha dhiibna ma aha cumrigaana jira ciradaana igu taal shinni lacag dhiibaysna weligay ma arag war isxilqaanku iskaa wax u qabsoo la bedelay miya waa soomaalida cusub ee nabadii nolol soomaalida cusub ah ununkana intaana la geeyey he weligay nabad qalin gaduudan lagu qoraayo ma arkin aniga dhiiggaan yaaba lagu kor daadsan jira war madaxweynaashii geelan oo madaxweynuhu u wacay ma yimaadeen war jubbaland mar horay diidayniyo war waare waa diyaar waa yimid ununka madaxweynayaashaaneeto waana dhiween malag ku dil madaxweynayaal waa maxay war anaa musharax madaxweyne u sharaxana maya anaa musharax madaxyaro u sharaxan nabiyow ninba afkoo kuga ammaan hadda ka hor wuxuu yidhi habarta intay jirtaa nabi ammaanay jirtaa asuu yidhi habartaas nabi ammaan ka dheeraa maayo ilaahu aysa nabiga ilaahay nagu caayin waryaalehen qoladiinnan kudhooda isku meermeeraysanaysaa maxaad ugu dayan weydeen somalilan maxaan uga dayanaa ma in soomaali la kala gooyaan uga dayahaynaa war maad galmudug ku dayataana madaxweynuhiinu qaraabta war ma aha qodob dastuurka ka mid aha qaraabka bannaynaya maxaa ugu eedaynaysaa qof gaara war koonfur galbeed makadaytaana sida madawiine ahow shariif amal ku-higeenka diidiisa iskhilaaf dambe bankakoyn reedyey wuxuu yidhi deeqdaan qulquli maanta qaxootigan ad siinayso qaraabiyo tolmii hidine annaga qaarna soo si qarsoodinaha noo noqoto waa la kala qaraabtaahe alla warkaagu qiimo weyna war xaaji aadan afqallooc wuxuu yidhi 100 sano ka hor dib maxaa idiin celinayoo hore idiin diidey mar ulmaa ku dayataan qalqiga libinta doonaya dulligaa ku jira nolosha waa idinku deelqaaf war haajigaad sheegaas runtiisu baalgamuundinimadi baabahnoo dhigdiniyow war aduu 100 sano ka hor markaad soo qaadanaysid baad khudbadaha ra'iisul wasaaraha dhegaysatid war khudbadihiinnu ma dhegaysa ama ha dhegaysaninba maye rumayso amba ha rumaysanin waaye war soomaalidu usub khudbadii aynoo la dhegaysada hagalan leeye war say yihiin dadkii balaayada qarxiday waxaan loo joogin baad ku hadashaan balaayadii qarxisay weydii war dhanidhikii gooriya hooskii jiday madi weydiyaana war horaa loo yidhi waxaan laysku darin baa jiriyo doonis kala dheer ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacaya eebbago taasu waatan haddana haysat war annaga dalkayguma dayacnaa diyaasbarana ma xukunto lax walba shililkay isdhigta ayaa lagu qaalaa dooro walbana gallaydan cuntaa lagu kor dilaa adeertima caddow digaagad leh war dabkiin habbe markaad waalan jirtaan la gaaray nugu kala kaxaya meesha ma garoonka tima haddaad ugu kahado iday daaf ha kaa bajiye